waxaan jeclahay saddex farrimood diintu waa naseexo saddex farrimood inaan u diro saddex jiho oo hawshaasi khusayso jiho waa qolada kuraasta ku fadhida jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay haddii 1000 sano bal kumanaan sano lagu daayo nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado waxa xaqiiqo ah inay imaan doonto maalin aad ka tagi doonto ama isagu ka tagi doono maalinkaana mas'uuliyadiisii iyo tabiicaadkiisii ilaahay hortiisay ku taalaa way ka horeysaa nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhagdhago kursi Soomaaliyeed maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasnima jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaadan doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu quraanka ilaahay soo dejiyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ka warhaynin waxa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo maanta wax way 20 jir ilaahay uma xil qarinin xawaadista adduunka ka dhacayay waa aayad ilaahay oo taagan weeye wax lagu qaato waay war aaway raggii kuraasta isku dhajiyay xaggay ku dambeeyeen ee uquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo ka mid ah زين العابدين كي تونس آوي شين العابدين ده آوي بوتفليق الجزائر آوي مبارك مصر آوي علي عبد الله الصالح يمن آوي قدافي أفرتن سنة كبدا بليبيا كتليني آوي ورآوي مدحدي أدونك واتقين ما أنت هدان هيلي الله وحي نوغصو ورما وحا قبرك كو هايستا iyo ilaahay hortiisa waxay la tagi lahaayeen wax badan baa la inoo sheegay laakiin lagu waan qaadan maayo ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacay in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaadi waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiigiisa inuu daato waxaan ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilay in la xagto dhibaato sababtaada ku gaadho hadii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo kaliga oo qaawan adaa mas'uuliyadeeda qaadi doona ku talagal tanaazul kursiga lamadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaska baa looga tanaazulaa tanaazul waa khayr iyo maslaxo nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kama fi sahih al-bukhari wa ghayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisa xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay minbarka nabigu waa jaleecay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nabigu sal alla alay wasalam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiin oo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibn cali ibn abi taalib sanadkii afartanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii la isku hayay muaawiyah ibn abi sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma sanadkana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta aamul jamaa xadiidkii bishaaradii nabiga xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimka buu ku islaaxin doonaa
sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male nin la eriyay sharaf male nin ummadiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakhiraba tanaasulo maslaxada u tanaasul fariinta labaad waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacawday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya ciduu doonuuna siiyaa qul illahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa'u wa tanzicu almulka mimman tashaa' dagaal iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursigaa lagu gaadho midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya waa midda labaadee kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado tobanna ma qaado toddobana ma qaado hal buu qaadaa kursigaa halka qaada waa midkii soomaaliya intay isku laysay la qaybiyey oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyey adiguna madaxweynaa tahay kursigii ayaa markii uu ku wada fillaan waaya waxay noqotay in 10 kursi oo kale la soo saaro oo lagu qanciyo la yiraahdo landis kaana madaxweyne fulaan كان مدحوين فلان والكرسي وامد إلهينا النبو أقري هذه حقيقة بها كما دبعاوة مدى الصدح هذا اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي الرادي سو كوهن قوذي باتشتا دنبناك الراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي dad raggii dalkan soo burburiyay ee kursiga raadinaya inta kursi kaga fadhiisatay way yar yihiin kulligoodna waxay qaateen wixii dalka ka dhacay ilaahay bayna la hortagayaan miyaydan kuwaana qaadanaynin miyaydan wax ku qaadanaynin waxaan leeyahay luqadda qabyaalada daaya hadalka xanafta le daaya fitnada kicinteeda ka fogaada si mas'uuliyadi ku jirta u dhaqma yaa dalka u tura dadkan u tura duruufta ummadda haysata u tura ilaahay ka baqa qabyaaladan lagu celcelinayo ee la kicinayo ee lagu hadlayo ee lagu dhaaranayo warsootii halkaa ina dhigtay ma aha warsootii aan ku hungowday ma aha warsootaan ku jabnay ma aha war goormay shaati kale inoo soo xidhatay 30 sano kadib goormay shaati kale soo xidhatay soo iyadii uun ma aha waa iyadii laakiin wajiyada isbedelay shalay waxay ahayd generaal fulaan buu ahaa shalay maantana waa siyaasi fulaan لكن واحد قالوا يسبدل ما تشرو وعلى فتنها أبابلنا آفنا ذلك يدتك صوها ونقننا شرنا هرسيدها ونقننا فتنة لما ردميو شرنا اللي سكمت نريو ولا جفوا هذا ولا لقت حدرا كهرتك بوليه كذبتك مله آفدوا هذا هرطيه لا عدنا نول بيسا ميسا دروس تدنا وانو هينا waxaan leeyahay oo ugu dambaysiinaya kalimaadkan qolada ku leeyahay ummadan aad isu keenaysaan leedihiin mudaaharaad sameeya oo saaxadaha iyo banaanada aad isu keenayseen leedihiin dastuurka noo ogol war waxaan idin leeyahay meesha waa muqdisho war waxaan idin leeyahay muqdisho idinka naga yaqaana
warbishiiba intaasoo qarax baa ka dhaca war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa war magaalada hubbaa dhexdeeda yaalloo ku faafsan war kooxa dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwo kale ha ahaadeen war way fududahay dadka isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kada taxabadayn karo layn karaya war ayagaydaan kontarooli karaynin oo hadday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacbaa imaanaya hanti la burburiyaa imaanaysa mana kontarooli kartaan dowladina ma kontarooli karto been waaye ya dowladaha waaweyn baa kontarooli kari waaye mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxaa ku jira dad xilmo kas ah dad waxaa ku jira wax booba cisaabaad ijraan baa ku jira ya war maraykan baa kontarooli waayey oo faransiis baa kontarooli waayey oo ingiriis baa kontarooli waayey oo dowladihii xoogga badnaa baa kontarooli waayey ummaddu hadday dhaqaaqdo lama kontarooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona markaad ummaddan ku khamaaraysaan oo keliya ujeeddadiinnu ay tahay inaad ku abuurtaan keliyata breshar aad ku abuurtaan qolada idinka soo horjeeda oo waxaan la yidhaahdo muxuu ahaayey caalamka aad abuurtaan breshar ku abuurtaan ujeeddadiinnu intaa tahay waxay dhici kara iyo dhiigga daadan kara iyo aafada imaan karta iyo hantida burburi kartada aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiigga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan bimujarad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaan dastuurkaa qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabayo waa kee ma kii gaaladu idiin dejisay soo ma ah kii idinkala qaybiyey soo ma ah kii landhiska idinka dhigay soo ma ah dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba caqligiinni iyo wacyigiinnu hadduu heerkaa joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa imaan kara maanta ummadda meeshaa laysugu keenayo maxaa ka dhalan kara aad qiyaasi la'dihiin masaladu masale siyaasadeed maaha masale dowlad loogu hiilinaya ma aha mas'aladani waxa weeye waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho ma aha dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa wallaahi uma wallaahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaan nabi maxamed baana sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiinna ilaaliya war ummaddan ha ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxaan kadaa tafarsameeya war isu tanaasula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciinna dib u liqa masaalixdii damiciinna khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa tacaala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeta loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meeshaa ina dhigay waa wacyi xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayee gaaladu ay soo taageertay ee dalka burburiyey waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo ree hebel markaan gubannayna innagaa dabkii ku gubannay maantana waa sidii weeye cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa innaga waa shacabka waa hooyada waa carruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war innagaa gubanayna waa dalkeennii waa deegaankeenii innagii baa gubanaynoo dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeenna ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wadoo kursi doonayo awrka inugu kacsanayaa inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa
oo khatarta u badheero sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheenna ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadana waa wax laynooga faa'iidaystay waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno nabigeennu wuxuu ku taliyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaanna ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad laguu dili maxaad dhiiggaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysaay shalay bay hayeen qaar ka mid ah maxaa kuu soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu imaanayey sacabkaad u tunteena waxaad tidhahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talin oon gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkadaa dalka annagaa leh annaga lexjecla naga haysa haddayna adiga kaa haynin hadday ogaan lahaayeen shacab is-hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shakiga kuma jira waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidan oo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto tobanaan salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay sistamkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamku yaa waay beesha caalamkay kuu soo gurmanaysa yaa waay caqli xumadaada iyo waxyi xumadaada intaad walaalkaa isfahmi weydeen walaalkaa baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war wacyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii reehebel iyo reehebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata billaahi calaykum waa idinku dheereeye kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa ma tahay mise ma aha etoobiya waatan kilillo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dowladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid systemkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo systemkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiisa ma dantaadaa ma isweydiisa waa markaan leenahay meesha layna geydhsiiye godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay
xaaladda noocaas oo kale marka waxay u baahan tahay muhiimna ah shacabka Soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiina garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinana u istaaga ma aha rag iyo hebel ma laakiin masaalixdiina dalkiina iyo deegaankiina iyo diintiina iyo dadkiina sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra